Shabaq bir ah ayay ku xiran yihiin labadan waraabe oo lab iyo dhidig ah. Muddo ku dhow 3 sano ayay halkan ku jiraan. Si maalinle ah ayaa shabaqan dhexdiisa loogu quudiyaa. Ma awoodaan in ay soo ugaarsadaan oo waqtigooda halkan ayay ku qaataan. Waa milkiilaha waraabahan waxay ula baxday magacyo ay ugu yeerto si cabsi la'aan ah ayay jirkiisa oo dhan gacanta ku marinaysaa ama ay ku saraaxaysaa. Haddaba ujeedka halkan ay ugu xirtay maxay tahay? Wallahi dhibaatadayna haysan lay ahayd aday bil ma haysanin beerna ma haysto asiga wax anaga maanta oo ka shaqaysan waa weyne anaga gaajaysan oo meel aan weysanahay qorshadan ninkayga soo dejiyay xilligaas xagee joogteen markaa baydhabo dad badan alxamdulillah dad badan oo ka daaweynaa jir oo alxamdulillah waa nooras ay dhahaan oo telefoon noo soo direenaa jir dadka marka meeshaan idinku yimaadaan anta ila soo gool ila soo ka imaadan dad ila afgo ila ceelasha dad badan ka imaada inkastoo cabsi badan aan dareemayo haddana waxaan isku dayayaa in magaca waraabahan loo bixiyay aan ugu yeero isla markaana jirkiisa aan salaaxo si lamid ah haweeneydan milkiilaha waraabaha ah. Halkaani waxaa ku wada xiran laba waraabe. Waa lab iyo dhidig, mid waxaa lagu magacaabaa Cismaan, halka tan dhadiga lagu magacaabo Sangaabo. Milkiilayaasha goobtan waxay ii sheegeen in loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada sida jinka iyo shayaadiinta. dad badan ayaa halkan yimaada si xanuunada haya ay ugu daweeyaan. Dadka shayaadiin qaban waa qarastan anagana biilkayna aadayba. Hooyadan nolosha oo ku adkeyd darteed ayay naftooda waxay halis u galiyeen sidii gacanta ay ugu soo dhigi lahaayeen waraabahan si nolol ay ugu sameystaan xilligaas oo ay ku sugnaayeen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Waxaan ku soo helnay ninkayga keenay. Si fiican. Jirgaan afka laga jaraa. Xilliga lagu dhaxridaa. meel oo waxa la tagaa bakoorinkiis meesha geedka la dhigaa jirgaanka marka si soo orday afkiisu gashanaa noo asi waraaba jirgaanka hilibku ku jiro afkiisu gashanaa markiis madaxis oo la gaar sida rabtida aad ka samaysan kartaa baxsan kara marka haye sidii asagna jawaan loogu soo rida sidii lagu soo qaaday sidaas lagu soo qabtay sidii noo keenay hadda iyada iyo caruurteeda nolol wanaagsan ay ku haystaan deegaanka Weydo duleedka Muqdisho inkastoo meel ciriir ah ay ku xanaaneeyaan waraabaha rajadooduna waxay sheegtay inay ka wanaagsan tahay sidii hore meesha meel yar iska tahay magaalada aan ahayn hadda laakiin dadka shayaadiin qaban u badan ay imaadaan hadda jidka waa loo fadhikaas hadda waxa ka helnaa moogay daawashada hadda 3,000 iyo dad la'aantan way u jeedaa dad ma joogo dadka u soo daawashada taga goobtan lagu xanaaneeyo waraabaha ayaa qofkiiba laga qaadaa lacag dhan 5,000 oo shilinka Soomaaliga halka dadka xanuunada laga daweynayo ee qaba jinka iyo shayaadiinta si gaar ah loola heshiiyo mid kamid ah dadka iyagu sida maalinlaha halkan u yimaada oo ii sheegay in xanuuno kala duwan markii hore uu dareemayay balse hadda imaatankiisa kadib uu ii sheegay in caafimaad uu dareemayo maalinkii ugu horeysay halkan aan soo galay uleys badan oo hore isaarnaan jiray baa iga digi habeenkii hatta hurdo wanaagsan aan hurday marka alxamdulillah rabbil caalamiin meesha tanna waxaan u yimid saddexdii maalmood maalin kasta wadadaas aan maraa laakiin maalin baa istiraadaan iyo oo ma gasho waraabahan ma daawataa si ani maartii cilceen baa iska jira oo waxyaalo badan baa iska jira bani aadana iska muqrahaya waraaba dad cun ah in isaga laga sameeyo daawashadiisa lacag ayaa wax ku cusub magaalada Muqdisho laakiin duruufta nololeed ayaa qoyskan wax kasta baray in naftooda ay halis u galiyaan soo qabashada waraabahan محمد عبد الحسن جوب مقدشو تعالش واكو سلام الربيع أول عقتي بيلكي مانت لعقتها قيمة بنات يعني أنت السنة كنت براي ما أنت هداد العقهين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله ما عاد سكلي يسر الله إذا سوعس أنا وشيء هلا حاجي وحوي لبنا كنتو توسي شافتان وكاي ربان marka xogo iyo dulqaad baar xalan ku hayaa ma kulli أخبار فرحة لهم كوا هاي ترى عنا أخبار فرحة لهم كوا هاي يشك هذا إذا ما هو حرت ورا هذا أخبار فرحة لهم وش أو كوجو ليش سامتين ها وحن كوجو ليش
ina ooya iga soo dhumar dambe ima burinaysa bajaajan ku guulaysta قول ما anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay daka dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kalisa adiga haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab ah والله shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan